Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soo dhawaada YouTube-ka Caalim Technology iyo page-ka kulay Facebook-ga. Maanta casharkan waa casharada imtixaan ahaa ee barnaamijkii aynu bilownay ee loo yaqaanay accounting-ka gaar ahaan computerized accounting. Software-ka loo yaqaanay QuickBooks. Intaana software-ka meherada lagu xisaabiyo aynaan gaadhin. Waxaanu sheegnay inaynu horta sidii baran doono dalka accounting muxuu yahay. Accounting ee bixinta accounting-ka chart of accounting-ka qaybaha kala duwan ee account-da kala duwan oo isticmaalo waxyaabahaas aynu eegi doonaa insha Allah cashar aan badnayn ku qaadan doonaa dabadna barnaamijkii loo yaqaanay QuickBooks-ka insha Allah u geli doonaa halka su'aasha ku weydiin waxa what's accounting waa maxay accounting-ka maxaa lagu qeexayaa accounting-ka inta loo qeexitaan baa halka inoo talan galba qeexitaan bartiinoo yaala labadaba ku qeexi karnaa accounting waxa loo yaqaano waxa la yiraahdaa language of business waa luqadda horta markooda uu ku hadlo maxay ganacsigu ku hadlo ganacsigu luqadda uu isku fahmaa loo yaqaan accounting marka si loo looga jeedaa accounting markuu loo luqadda uu ku hadlo ganacsigu waxa weeyaan ganacsi markuu doonayo inuu fahmo ama tusaalahaan oo kale imiko kale meherada waxa ka shaqeeya qof accounting-a hadhow qofka accounting-a markuu tago waxa la keenayaa qof kale accounting-a la keenayaa laakiin haddii qofka meherada uu ka shaqeeyo qof aan accounting ahayn uu ka shaqeeyo waa in la weydiiyaa qadiima lagu qori jiray halkee tusaalahaan oo kale lacagaha la qabtay lagu qori jiray waxyaabo su'aalo badan baa la weydiinaya halka laakiin qof markuu accounting yaqaano kaliya wax lagu wareejinayaa oo statement-yadii kala duwan lagu wareejinayaa ama reportadii dadna qofka halkaas oo kale si jaa qaadaya marka accounting iyo accounting laba accounting bay ahaayeen way fahmayaan labadaba ganacsigu soo soconayo ganacsiga international ka inuu isku fahmaa accounting isku fahmo hadii tusaalahaan meherado kale ay tahay meherad ku xidhan tusaalahaan oo kale caalamka meherad wadamada tusaalahaan oo kale wadamada tusaalahaan oo kale ka shaqeysa waxay isticmaalaysaa accounting bay ku bas gareynaysaa markaa wuxuu ku yiri qeexitaanka labada accounting waxa loo yaqaano wuxuu yiri accounting waxa loo yaqaano is a systematic process wax input iyo output leeyahay input waxaana gelayaan output waxaana kasoo baxayaan waxa soo baxaya of identifying waxa harada identifying la aqoonsanaya waa la aqoonsanaya marka koobaad shaygii dhacday waa la aqoonsanaya diimka dhacdo marka koobaad waxaa lagu sameeyaa identify wixii waa in la aqoonsaa waa in la fahmaa dhacdadani ma la taxalluqaa meherada waa in la fahmaa marka la fahmo wixii waxaa lagu sameeyaa recording in wixii la kaydiyo ama la qoro recording ima laba noqonaya inta badan inuu noqdo recording oo bookkeeping noqdo iyo inuu recording oo computer lagu diiwaan geliyo marka labadaas marka bookkeeping waa la isticmaali karaa book lagu diiwaan gelin karaa ama computer baa la geliyaa marka in la sameeyo marka wixii diiwaan gelinaysa waxa ku sameeyay measuring wixii cabir baa saaraysa meesha wax weeyaan wax weyn ku dartaa calaamad ku dartaa calaamad doorka calaamada haga duwan mid kamid ah ku dartaa waxa weey measuring waxa weey accounting-ku wuxuu isticmaalaa money iyo lacag monetary accounting waa xeerarka accounting kamid in yahay monetary unit assumption baa kamid ah marka waxa weey measuring waxa weeyaan in lacag lagu daro shay walba lacag lagu sheegaa shay ka soo la diiwaan gelinayo waa in lagu sheegaa lacag lagu sheegaa kadib waxa weey classifying waa in wixii la kala soocaa sidoo loo kala soocay talaalka diimaha meel kale lagu qorayaa iibka meel kale lagu qorayaa check inuu sameeynaa inuu alaabta soo iibsano meel kale lagu qorayaa wixii waa in la sameeyo classifying waa in la kala soocaa mid kasta report-kiisa hadhow la helo verifying waa in la xaqiijiyaa verifying macnaheedu waxa weey maxay waa xaqiijin weeyaan verify oo waxa la xaqiijinayaa sidii saxda ahayd ma loo geeyay calaamadii saxda ahayd ma lagu daray halkii saxda ahayd ma la geeyay dhacdadani sax ma tahay sida loo qoray verify waxa xaqiijin waxa la geliyay in sax tahay in kale waxa markaa waxa uu sameeyaa summarizing macnaheedu tahay waa reporting oo summarizing waa in la soo khulaaseeyo la soo koobo dhacdooyinka maanta oo dhacay report baa sameynaya report ka summarizing wixii la soo khulaaseeyo interpreting in wixii la turjumo and communicating in loo gudbiyo ama loo diro the financial information of an entity meherada waxa lagu sameeyaa interpreting waa la turjumaya and communicating macnaha leedahay weeyaan waa in loo gudbiyo dadkii ku shaqada lahaa report-ku waa la daabacay report-ku meel la iska dhigi maayo oo waa tan la soo sameeyay report-ku la sameeyay report-ki marka la interpretation lagu sameeyo qalatani communicating managers baa loo gudbinaya ama owner-ka baa loo gudbinaya hadba owner agent baa loo gudbinaya hadba kee khusayso marka communicating waxa weey cidii xaq u lahayd report-ka in loo gudbiyo in loo helo ay helaan marka communicating in loo gudbiyo marka financial information warbixintii maaliyadeed of an entity ee shirkadda loo gudbinayo
kawa maxay accountiga qeexitaanka step ka dheer lagu qeexa ka gaaban oo lagu qeexa ka socono haddii intaan soo qaadano waxaynu samayn doonaa intaadan soo qaadano ninka waxaad halkaa identify baad ku aragtaa dhacdada markii koowaad waa la xaqiijiyay selecting the economic event transaction dhacdada transactionka dhacda eventiga dhacay marka waxaa lagu identification baa lagu la xaqiijinayaa marka identification lagu sameeyo waxaa la sameeyaa recording waa la diiwaan gelinayaa recording baa lagu sameynayaa shayga waa la diiwaan gelinayaa communicating waa loo gudbinayaa waa manager gameka loo gudbinayaa waa halka waxaad ku aragtaa maxay interpret waxaa ku sameynayaa turjumaya waa from the users or from the client or from the subscribers or from the customers macaamiishu waa turjumaysa marka macaamiishii meherada ama userskii meherada ayaa reportka eeganaya reportka marka waa muhiim waayo waxay go-aan ku qaadanayaan dadkan tusaale ahaan oo kale macaamiisha ku ahay inay shirkadan lasii xidhnaadaan kale go-aan ku qaadanaya laga yaabaa dimo fara badan bay siisaa marka haddii meherada oo kale ay tahay meherada ay ka caysa u eg tahay dee waa inuu ka bedeshaa qofku way noqonaysa inuu ka bedeshaa bay noqonaysa marka waxay analyzing and interpreting for the users baa analyze garanaya marka uu turjumaya way halkan waxay noo types of accounting noocyada accounting uu leeyahay inkastoo qaba yihiin subsidiary yihiin oo isku hoos jirjiraan laakiin tan ba guud ahaan loo eegaa waxa la eegaa mid wax loo yaqaan financial accounting waa kan inta badan ay khusayso waa kan faa'iidada inta badan laga rabo weeya waa faa'iido waa accountingan soo iibi alaabteedna sii iibi dabeedna faa'iidana saar ayaa loo yaqaanaa isaga haddii alaabta inta badan profitka laga raadiyo qaabka faa'iida loo raadiyo ayaa loo yaqaanaa financial accounting marka waan arki doonaa lafkiisa qaybo fara badan yaala financial accounting wuxuu yeelanayaa lafkiisu meherad merchandise bay noqonaysaa meherad alaab siibisa hoos imanaysa waxaa hoos imanaysaa meherad tusaale hadday tahay oo kale service hadday tahay oo service charge garayso ay dabeedna ay lacag ku helayso meheradu hadday tusaale ahaan tahay manufacturing oo alaabta lafteedu samaysay warshadiiba ay tahay inta financial accounting bay hoos imanaysaa marka management accounting waxaa dhigtaa dadka doonaya inay managementiga bartaan ayaa dhigtaa oo accounting ay maamulaan waa qeyb kamid ah accounting isaguna oo qeybaha la bartaa governmental accounting isaguna waxa waa accounting ku taxalluqa dawladda halka waxaa kaloo hoos yimaada governmental accounting mararka qaar waxa la hoos keenaa kan loo yaqaan non profit organizations labadaas la isku daraa governmental accounting iyo non profit organizations labaduna waxay kala yihiin governmental accounting waxaa loo yaqaanaa waa accounting dawladdu ay ku shaqeyso dawladdu iyadu maaha faa'iido doon ma cashuur baa lasoo ururinaya dabeedna waxaa la sameynayaa projects baa lagu fulinaya oo la fulinaya markaa iyadu kuma shaqeyso waxay hab faa'iido doon ma aha iyadu waxay sameysaa cashuur baa lasoo ururiyaa dabeedna cashuurta mashruuciya lagu fuliyaa markaa waxaa taa lamid oo kale non profit organizationskuna waa lamid oo hay-aduhu waxay soo qaadanayaan iyaguna projectya soo qaadanayaan dabeedna way fulinayaan tax accounting foreign accounting project accounting and social accounting intano iyaguna accounting ahi intano dhan iyaguna accounting ahi waa accountinga qaabka cashuuraha yar loo barto marka intana waxay subsidiary u tahay hoos timaada governmental accounting qaadi si balbalaaran loo eegana afartaas loo qaybiyaa inkastoo inta badan saddex sano loo qaybiyo marka kaas loo yaqaan maxay financial accounting qaybahaas ku kala leeyahay marka inuu hadaba keeno dhiganayno software-kan ku dhigan doono insha Allah wuxuu noqonayaa financial accounting buu noqonayaa haddaynu ka gudubno financial accounting maadaama aynu dhiganayno financial accounting quraan soo qaadanay financial accounting waa maxay marka ama waxa loo yaqaan financial reporting financial waa maaliyadeed iyo accounting in maaliyadda la xisaabiyo ama financial reporting in maaliyadii warbixin laga diyaariyo what is the process of producing book leeyahay information from external users waa inta badan waa hab warbixin loo soo saaro iyadoo warbixinta inta badan la daneynayo waxa loo yaqaan from external users halkaasi weeyaan waxaa inta badan la daneynayaa oo warbixinta inta badan looga dan leeyahay in lagu qanciyo external users waxa loo yaqaan external users iyo internal users external users ka marka financial accounting isagoo xooga saara external users waxaa kamid ah investors baa kamid ah creditors baa kamid ah customers baa kamid ah macaamiish baa kamid ah dadkii deymaha shirkadda siinaya kamid ah dadkii doonaya shirkadda maal gashadaan baa kamid ah marka intaas oo dhan haddaanay warbixintii maaliyadeed aanay haynin
shirkadaas dee shirkad inta badan shirkad warbixinteedii lahayo unbaa wax lagu darsan karaa. qoryahan dee creditorsku deyntii ma bixinayaan, deyntii ma bixinayaan haddii even ay dhacdo inaanay ay ka shaqeeyaan meheradaasi inay tusaale ahaan aanay ahayn meherad si wacan u shaqeynaysaa dee deynku siin maaya. marka reportkii eegayaan in wax ku qaadan maxay report ku qaadanaya usually in the form of financial statement. inta badan waxaa la diyaariyaa financial statement arki doono bayaano maaliyadeed diyaarin doona dhowr financial diyaarin doona hadii la dhigo oo kula daba financial statement reflect on the entity past performance and current position based on the set of standard and guidelines. wuxuu ku leeyahay financial statement wuxuu sheegayaa ama xaqiijinayaa halka ay shirkadu ay taagan tahay iyo wax qabad performance-geeda waxa weeye shaqadeeda performance inta ugu muhiimsan waa inta performance waxa weeyaan shirkadana qaabka u shaqeynayso iyo hadda halka ay taagan tahay iyadoo lagu saleynayo nidaam standard ala raacayaa kule guidelines. accounting hadaba financial accounting wuxuu raacaa guidelines buu raacaa sharcigu raaco waxa loo yaqaanaa GAAP baa loo yaqaan sharcigu guud ahaan accounting raaco waxa loo yaqaanaa GAAP. ka accounting su'aalaha la isweydiiyo waxa kamid ah accounting-ku wuxuu isticmaalaa suuqiin iyo kala jarid iyo suuqyada isku dhafasho iyo percentage intaas uu isticmaalaa xisaab kale oo soo gasha inta badan ma jirto. haddana waxa dhaabxa adkii waxyaaba adkii waxa kamid ah inuu sameeyo nidaamka loo yaqaan GAAP u raaco. marka GAAPna waa general accepted accounting principles waa xeerar guud oo la isla aqoonsiyay inta badan dadka toban bay ku sheegan laakiin waana laga badiyaa laakiin inta badan toban baa ugu buuran oo aad loo isticmaalaa. ay kamid tahay tusaalahaan ay kamid tahay inay kala madax banaan yihiin shirkadda iyo qofka hantiile kala madax banaan yihiin in accounting-gu yahay markastaba shay lacag lagu cabiro uu yahay markastaba accounting-ka waxaa lagu cabiraa lacag baa lagu cabiraa. waxaa kaloo kamid ah in shirkadda loo sameeyo xisaab xidhiyo kala duwan in waqtiyo kala duwan loo sameeyo time period assumption baa loo yaqaanaa in xidhiyada la kala sooco waxyaaba badan saasa kamid ah. qaybka inaga maadaama accounting kusii dheeraana doona software inaan loo qabsano haddii la ka dhigo nidaamkan raaci doona insha Allah nidaamka loo yaqaana GAAP ayaan raaci doonaa. halkan waxay naga muuqataa the basic accounting equation. accounting wuxuu isticmaalaa equation isleeg u isticmaalaa ama qaacido isticmaala accounting-ku qaacido isticmaala waatan qaacidadiisa waxaa loo yaqaanaa assets waxay leeyihiin equals liability iyo owners equity. qaacido guud ahaan accounting-ku isticmaala waa qaacidada markaa waa maxay qaacidada marka haddaan sharaxno assets waxaa loo yaqaanaa raasamaal liability waxaa loo yaqaanaa deyn owners equity waxaa loo yaqaanaa shakhsiga meherada iskale lacagta ama hantida uu gaarku leeyahay loo yaqaanaa owners equity loo yaqaan. haddii tusaale soo qaadano imika kale waxaaba tusaalahaan meherad furo meheradii markaad qiimaysay waxaa kusoo baxay inaad ku furan karto tusaalahaan oo kale aad ku furan karto $3,000 aad ku furan karto $3,000 markaad aad meheradii aad ku fadhiistay meherada $3,000 ay ku furayso jeebkaagi baad soo eegtay dabeedna jeebkaaga waxba kugu jira wada haysataa tusaale ahaan $2,500 baad haysataa maxaa kaa dhiman $500 baa kaa dhiman. dabeedna waxaa sameysay waxaa u tagtay tusaale ahaan inaad saaxiibatiin baa u tagtay ama shakhsi ama waxaa u tagtay shirkad baa u tagtay dabeedna waxaa u tagtay $500 igu dara oo waa lagu amaahiyo tusaale ahaan oka marka waxa $2,500 adaa leh $500 waa ku gudiyay. maxaan sameeynaa markaa horta $3,000 waxaa loo yaqaanaa asset bay isku noqonayaan. asset macnaheedu waxa weeyaan waa lacagta aad leedahay iyo lacagtii deynta ahaydba intuba horta wax isku noqonaya $3,000 horta waasto waa raasamaal markaas labadan kala qaybsamayaan. qalabada marka la sugiyo weyn inta la eegata halka marka 3,000 ka dhigno 3,000 aan u dhigo tusaalahaan halka liability-ga deynta liability waa deyntii lagu soo siiyay waa $50 waa $500 baan leeyahay. owners equity-guna waa maxay waa $2,500 labada marka la sugiyno waa maxay $3,000 baa soo baxaysa. marka accounting guud ahaan waxa uu isticmaalaa qaacidaas guud ahaan maxay isticmaalaa ayuu accounting-ku isticmaalaa. marka halka maanta dhaafin hadda laga dhigo halkaas joojin doonaa xiisada xigta insha Allah halkaas inuu ka sii qaadi doona hadda laga dhigo waa maasantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi